markaas aniga aan joogay iyo madaxii shirkadda oo dhan muddo 14 maalmood ayayna baarayeen 14 kaas maalmood ayagana 14 qofood meelaas ahaayeen wax alla wixii aan haynay oo record is 10 sano ku dhawaad oo dowladda Imaaraadka aan deganeyn markaas ay dokumentigaas ay qabatay iyo kombiyuutarada wixii dhan ayaa lagu wareejiyay wixii mataqaanaa ay baareen su'aalo naga warsadeen wax kastaba transaction kasta iyo wixii dhacay kulli nimankii markaa 14 maalmood markay dhamaatay su'aalooda dhamaysteen nin FBI ayaa watay waxaan aniga su'aal miyuu furanta adinka leeyahay wax su'aalaysa inaan marka ka hor xiriyaha ku furanta waxaan hadda waa aragteen dokumentigii reality u tagteen runta ma ka sheegi doontaan arrinta wuxuu ugu jawaabay annaga professional people ah ma nihin siyaasiyiin marka waxaan ka qaatay technical inay yihiin dad ah oo ayagu aan siyaasad shaqo ku lahayn oo runta mataqaana abaari doona runtiisii sameeyeen 2004 meelahaas report ay soo saareen mataqaana 9/11 report yiraahdo reportkaas chapter kamida 9/11 oo dhow wixii dhacay chapter kamida barakaad ay uga hadleen ilaa 60 page aan ku malaynaa inay uga hadleen si fiican u cover gareeyeen arrintii waxay dhaheen wax la haayo ma jirto allegation qaldan waaye xataa waxay ninkii markaas treasury secretary ahaa Mareykanka oo yiri $25 million ayaa siiyaan qaacida markay baareen lacagta dhan oo la sameeyay 1 milyan marka waxay dhaheen wax macquul ma 25 billion intay ka bixinayaan lacagta meesha ay businesska isagoo 1 milyan waay marka reportkaas runtii aad ugu cadeen markaas waxay dhaheen akhiiran yani waa niman experts ahayeen runtii oo treasury iyo FBI iyo hay'adda kale ee Mareykanka ahayeen arrinta runtii ka sheegeen ayna wax ahayno ma jirto yani waxayna heleen all documents oo ay siis gareeyeen anagoo is ogeyn mar haddii mugta document keen yiraahdo waxa dhici karta qof inuu wax laabo anagoo ogeyn ayaan dulda markii hore alaabta la qabto Imaaraadka dowladda Imaaraadka ay qabatay marka waqtigaas ka bacdi waxba kama inkastoo reportkaas ay soo bixiyeen nimankaas haddana waxba ma naqon lawyer-aan wuxuu dhiibnay waxba inaga awris ay shaqaystaan awris wataan lawyers awriskaas lacag laga qaadi awris kaleeto awris waa daal bis joogan bis inta ka badan bixin karnaa ka bacdi 2007 ayaan tagnay Djibouti halkaasaan mataqaanaa runtii ku wareegay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Margeele ayaan meeshii kula kulmay soo dhaw waddanka si fiican ugu soo dhaweeyeen wuxuu yiri Soomaalida waddanka inaa yimaadaan doon adigan waxaan naqaanaa in oo businessman oo Soomaalida aad iyo aad magac ku leena tahay Soomaalida kale u yeer meeshaan ka sameynay xafiis Somali Business Investment Council yiraahdo Djibouti markii joogisteeda khayr weyn ay runtii ugu jiray shirkadeena alxamdulillah rabbil caalamiin joogistaas ayaa keentay in madaxweynaha Djibouti inuu arrintii markaan u sheego arrintaana jirta oo yiraahdo bal hadda bal isbedel aan sugayaa administrationka markuu isbedelay arrintii uu galay ilaahay waa ku guuleeyay liis oo UN-ka 2 jeer oo liis waxaa jira oo Al-Qaeda Committee iyo liis kale oo yiraahdo Somalia Eritrea Sanctions Committee kaasa markii laga saaray kan hadda la grishay kana sidoo kale juhdi badan ku bixiyeen dowladda Djibouti President Ismaaciil khaasatan alxamdulillah rabbil caalamiin waa nagal saar liiskaas waxaa soo haray liiskan kale oo Mareykanka liiska Mareykanka waa liis dhib badan aad u dhib badan markaan treasury la yiraahdo
dadkii gala waa ku dhintaan marka anigu markii dambe casdhahay maba laga bixi doono runtii kabacdi juhdi kaleeto oo dowladdii xasan sheikh prime ministerka khaasatan qayb waqtigii prime ministerka u jooga cumar cabdirashiid ayaa ayagana muxaawalo kale sameeyeen iyadana waa lagu guuleystay in aniga magaceyga laga saaro waxaa ku haray marka oo liisa ku jiray sharkaadkii oo dhan mayna ka saarin sharkaadkii maxaa uga saari weyseen dilwars waxay dhaheen okay ninkan waa fahmnay oo baaritaankii muddadaas badan la baarayay dowladihii dhammaa oo gobolka waa fahmnay inuusan waxaan ku jirin marka laakiin sharkaadkan waxaan u baahana baaritaan kale oo ya-is ka leh ama dad kale leeyihiin oo la ogaado intaasay ay baarayeen aduu markii dambe u diqaato waa 2016 marka aniga magacayga laga saarayo tanna waa maxaa u dhahay 4 sano 5 sano kabacdi sidiiyaa marka correspondence la sameyn jiray dowladda president maxamed farmaajo ayaa timid markay timid dowladda waxaan arkay prime ministerka khayre marka waa kulli wuxuu la socday war haye war ma ku jirtaan weli bahashii liiskii war waa ku jirta meeshii marka weli alsiyada war insha allah inta xafiiska joogo waan isku dayayaa inaan insha allah aan wax ka qabto arrintaas runtii waa la socday marow taga iyo marow correspondence la sameeyo xafiiskiisa iyo runtii wafdi mareykanka yimid halkaa xagga mar ugu tegay mar kastaba feedback usii jiro dhahay arrinta abshir insha allah waxay leedahay rajo fiican bay leedahay akhiiran shalayta timid arrinta rajadaas ilaahay subxaana watacaala oo soo dhammaatay marka runtii prime ministerka waxaan rabay inaan ujeediyo shukri arrintan hadda uu ku dadaalay aada u mahadsan yahay marka ma howl socotayo ka dhamaystira qaybtiisa is leedahay mise shaqada ugu weyn waxaa qabtaa leedahay ra-iisul wasaaraha hadda markay noqoto shirkadan in xayiraadii la qaado hadda xayiraadan shirkadaha ku saabsan runtii mogtahay isagaa 3 sano hadda waday 3 sano waday laakiin UN-kii waxaan waa wax isbiirsanay oo chain howlo socday waa China oo Djibouti bilowday albaabkii furtay dowladdii ku xigtay ay sameeyeen xataa dowladii hore runtii khayr xataa dowladdan waa dhamaystirtay waxba ay suurtay dowladii shirka xataa isku dayeen isku dayeen marka juhdi wuxuu ahaa runtii waqti dheer soo bilaabay oo dowladdan hadda federaalka hadda joogta akhiiran dhamaystirtay dad badan ayaa lacagoodii uga xayirmeen shirkada waad ogtaa markii la xayiray inkastoo waqti hore aad soo bilowdeen in aad lacagihii qaar dadka ogeysiisyo aad bixisaan oo warbaahinta dhigtaan dadkan aad u yeertaan haddana hawshu ma ahayn mid sahlan oo waqti dhow ku dhamaanaysa ilaa hadda intee la egtahay dadka ay weli lacagoodii ka maqan yihiin maxaase idinkaga qorshaysan horta dadka markii shirkadda la xiraba alxamdulilah rabbi alcaalamiin dadkii waanu sheegnay wanayo lacagtii waa gacantiina laga baxshay hal mar bangiyaashii lagu xirtay lacag soo socday bologareeyey marka dadkii horta runtii shukran usoo jeedin lahay awalan qabla kulli shay dadkii soomaalida ahay barakaad lacagta dhigtay ama kastamarradii barakaad wax ku xawilin jiray shukr wa taqdiir oo soo jeedinaya iyo sabarkay sameeyeen dadkii markii dhibaatadu dhacday waa sabreen nama dhibaataynin dhibaatadaasa dhacday haa waa sabreen markii ilaahay gacanteena wax soo gelshay waxba markaas oo shirkadda la xiray lacagtii lahayaa loo qeybshay oo waddanka taali muqdisho taaliya loo qeybshay 25% miya meelahaas qeybta wax ayaan qaybinay gobolada kale wixii hal soo kar waa la siiyay badan muqdisho badanaa lacagta halkaan ay muqdisho taali kabacdi waxa waaye listinkii hore lagu sameeyay 2012 oo barakaad iyo anigaba oo UN-ka markii lagu sameeyay UN-ka mar daliis ka saaraan wixii lacag laga haysto ama mashaakilku haysta oo safri karin
wixii ka baxsan maraykanka waxa waaye waa isticmaali kartaa lacagaada waa lagu siinayaa waa safri kartaa marka lacaga qaarkoodaan helnay iyo kuwo kaleto anagu aan haysanay aan ku bixinay alcumuum dadka lacagahooda mar hore waqtigaas xataa aan heli lacagtaas 2012 dadka lacagahooda waa la siiyey waagaas wixii ka horreeyey waqtigaas ku dhamaatay ilaa dad aan weysnayn oo dadkii meel jiraan la waayo meel dad mana lacaguna waa lacag yar $1,000 $2,000 $500 $700 $400 dadkii marka waa weyni dad badan waxaa dhici karta dadka badan allah inay dhinteen dadkaas allah naxariisto kulligeen waa soconaa laakiin intii badneed marka wax hadda 90% waa dadkii waa dad hadda lacag kule ma jiraan marka laga tago dadka la waayo in yar ah موجي دad kale oo caadi oo lahayd dad kale to ma jiraan iyaga xataa waa raadinaa telefishinadan TV kasi dayn jirnay iyo bas guud sharaxaad inooga sii bal aasaaskii shirkadan barakaad dad badan waxa laga yaabaa in la xayiray inay kusoo baraarugeen ama xaaladihii 20 sano ku dhawaadka soo socday inay og yihiin bal sawir guud inaga sidii aad shirkadan kusoo bilowday marka aan dib ugu laabano xilligii la asaasay waqti duruuf adag dalku ka jiray maxaad noo sheegi kartaa anaga markii hore xawaalad baan ku bilownay shirkadan sideetamaadkii bilowgii sideetamaadkii meelahaas ama dhexdhexaadkii sideetamaadkii ayaan bilownay xafiis oo xawaalo oo anigii khaas noo ah inaan mataqaana ka shaqaysiino awal horeeto ganacsata Soomaaliyeed aan saaciideyn jiray oo lacag u qaban jiray oo kamid ahaa Allahu naxariistay marxuum Xaashu Heliye kabacdi waxaan naga daay bahashani marabna boqol iyo kontonka aniga marka xafiis ka furay waa iska awal ayaga baan ku saaciideyn jiray markaas bangiga ka shaqayn jiray xawaalad waan wadnay تلكس بهال هذا الودري جري تلكس كاس يا حفيز كلي طولن كفرناي دad ka marka oo loo soo diri jiray lacagta Soomaalida marka waxa la sanaa hebel oo laga helo telefonkaas wadanka telefoon aad u yaraan 20 kun amarina ku jirto Muqdisho telefoon bas ma dar milyan $2 hadayso alxamdulillah marka dadka Soomaalida dad isku xiran موبايل ما جري online meel aad jirtay qiyaas marka qofka shay telefonka leeyahay la siinay lacagta telefonka gelinayna xafiiskan waa wacayaan marka qofkaas aawe qofkaas ma guriga anaga iska ha ma taqaanaan waa naqaan hebel miyaha dariski iyo aqoon iyo qaraabo intaba marka telefonka 20 kun dadka loogu kala gudbi jiray wax 20 kun oo loogu kala gudbi jiray waxaa dhacday markii burburkii markuu dhacay talkiskii iyo telefonkii wixii dhan waa la bilaqastay dadkii waa noo yimaadeen waxaan doonayaa inaad lacag noo xawshid waxaan xawli karnay xagee xagee dadku arkeen aaday dadkii noogu taxriidiyeen oo waxathiyeen war lacagtan si aad yeeshaaba noo geey lacagta war dadkii oo dhibaataysan waa fakarnay an runtii markaas dadka in wax loo qabto bay iga heer markaas wax ka hel xataa ismanay saa dadka mushkilad u xalisaa aadii anfac lacag fi ma bacd adiga haddaad wax wanaaga samaysid tanfac adeeg ku anfacaysa arrintan xal see xalliya waxaa igu soo dhacday dadkan Soomaalida in lagu raadi karo qabiil in lagu raadi karo haye kan lacagta hebel oo reer hebel ka ورر هبلكا بس ديسكا سو قاتي ديار جيبوتي ما جرتنا سو راعي هي العقد حق ان كسو قادي ويلشي كشقيني حفيز كان عقد ديبي ددكي وي رادي رير منطقه بو كقرين رير منطقه ريبل يا غوار نكان ريبل يا واي يوكسيها اني ما هيا جلبكاس waxa waaye xaqaas ninkaas loo tag almuhim lacagta aan soo qaaday dadkii waa la sii inti banaan arrintaas marka runtii waxa oo mucjizo lahayd quraanka waxa ku yaala Soomaalida qabiilka si qadan u isticmaal in la isku dilo la isku kala eexdo la isku baabi'iyo laakiin quraanka wuxuu leeyahay waja'alnaakum shu'uuban wa qaba'ila lita'aarafu
litacaaruf waa isticmaala marka yani haddii dadkaas uusan jiri lahayn qabiilka maba la arki lahayn marka aayaddaas oo 1400 soo degto ka hor isticmaalkeeda hadda la inuu yahay marka aduu wadanka joogtaa mise dibadda anigu wadanka jooga waxaan joogaa Saudi Arabia jooga halkan waxaa jooga dadka ka shaqeeya rag halkan madaxa jooga Abbas Allah naxariisto leeyahay halkan intay iyo rag oo la shaqeeya meeshan jooga ragaasa laakiin aniga lacagta soo qaaday yarda la soo raaca iyo liiska lama jiraan wax lagu kala gudbiyo adoo arintaas alxamdulillah baday socotay dadkii warqadiyaan ka soo qaaday warqadan u geeyay haddana qaar London markaas barakaad isgaarsiin xawaaradda barakaad waxay ka furneed oo kaleeto markaas London iyo Sweden markaas xabsi meel ka furteen bas meel kale ma jirin ayagana way soo diri jireen adresska marka dadkooda marka u geeyno warqadan ka soo qaadnaa waa u dirnaa boorsada laakiin Saudi Arabia ay ahayd ay ku keeni jireen ay ka fureen xooggeeda shirkadda dadkii waa markaan warqadii u geynay aad ugu farxeen dadkii oo warqadaha laga qaaday in la helo aad ugu farxeen way yaabeen seen u soo hesheen waqtigaas marka meeqay qaadan jirtay aad lacagti soo qaadayso waxa markeenayso la qaynayso waqti intee la yaqaan awal hore xawaalada siida xawaalada Soomaaliyeed waxay ku bilaabatay 70-aadkii intay Sacuudiga waxay ku bilaabatay in ganacsato imaanay wadanka dadka oo lacagta ka aruurinaya liis yaa lacagta ururta hebel telefonkaas laga helo hebel badaacu gashanaya badaacdi markuu gashto oo soo baxaya dadkii lacagta tartiib u seenaya waxay qaadan jirtay bil in dadka lacagtooda gaarto anaga waqtigan dambe anaga talkiska markaan gaarnay talkis waxaan 1 day ama 2 days ay qaadanaysa tan oo hadda kala go'day waxay qaadanaysaa dadka lacagta in laga aruursho 10 maalmood meelahaas la aruurinaa lacagta 15 maalmood waa qaadaysaa waa la soo qaadaa halkaana la keenaa markaas ka bacay raadina adigu 20 maalmood ay qaadan jirtay waqti dheer dabcan aad hadda sheegtay oo xilli 800 adoo Sacuudiga jooga aad wadankii isku xiri jirtay inay dhaqaalihii iyo dadku wax gaarsiiyaan marka su'aalaha dadka qaar isweydiin waxa kamid ah Sheekh Nuur waqtiga wadanka Sacuudiga shaqooyinku qabi jiray maxaa kamid ah أنا business man أهاك كبرنا مركو هذا سعودي وحبانا صومر شغالون سحمار بنجيال إنكسو شقي وعسنا كسو كبعد مركز business كشقينا هيك commission agent هاك مركو كرب سعودي يعني أسود دراي العقوس حولنا أي وعسنا هيك شقينا هاي مرة هدي حيرادي لقى قاعدة شركة بركات دب مياد أول قلينا إنسان شركة دي مر هدي الحمد لله رب العالمين شركة بركات لقى قاعدة shirkadda waxaan jecelnahay haddii alla yiraahdo shirkadda dhibaato weyn dadka soo gaaray waqti badan arrintu maqneed marka waxaan rabnaa bal inaan isku noqono sectorska geli karto iyo shaqooyinka qaban karto aan fiirino insha Allah dib u howlgelino way adiga qudhaada xayiraad ayaa lagu saaray waana laga qaaday shirkadda sidoo kale waa la saaray iyana ugu dambeyn maanta ayaa laga qaaday waladii soo baxday qasaaraha hantiyadeed ee muddada shirkadda ka xayirneed gaaray intuu leegeen wallaahi nambaro kuma tiri karo shirkaddu shirkad shaqeynayso lacag soo saaraysay oo intaasoo kunoo qofood ka shaqeynayeen dadkii ka shaqeynayay shaqalaanta ku dhacday dhibaatada ku dhacday aniga madaxda ahayd wixii nagu dhacay shirkaddii waxay soo saari lahayd oo zero noqday wixii haystay oo la qaatay health hazard isku dhacay dhib badan dhacay badda ma soo koobi karo marka wax tiro koob ma ku sameeyaan wali marka dhow inaad dalbataan ma laga yaabaa mar haddii dhibka intaa leeg idin geystay wixii ladinku eedeeyana ladinku waay dabcan waxa waaye markii hadda alxamdulilah maanta kaleeto maanta kaleeto waa dhigi karna war laakiin awal horeeto waa eedeysana ahayd laakiin markii eedeysana ay ka baxdid xaqa u leedahay kulli arrintaas maraykankaas mataqaana qawaaniintiisa iyo legal systemkooda ayay u noqonaysaa marka looyaradeena iyo waan la hadlaynaa insha allah iyaad uga mahad celinaysaa meesha maanta la soo gaaro oo ah in shirkaddii barakaad xayraaddii laga qaado oo ay nadiif tahay oo wax dembi aan lagu hayn adigana horey lagaga qaada xayraaddii iyaad uga mahad celinaysaa arrinta ilaahay ka sugo ilaahay subxaana watacaala uga mahad celinaa number one asaga له الخلق وله الأمر أصلا وح إلى سبحانه أو سأمرنين أما أنا فسحين ما سعدان ثم
bacda dalika runtii waa kuu sheegay albaabka koowaad furitaankiisii runtii dowladda Djibouti president Ismaaciil ayaa iska lahay bilowgii oo UN-ka su-aashan ka jawaab malahay kabacdi dowladihii ka dambeeyey qeybay ka qaateen dowladii president xasan sheekh sheekh shariif iyo kullu aad iyo aad ay qeyb fiican u qaateen kabacdi hadda maanta alxamdulilah dowladdan joogta federaal kan president maxamed farmaajo uu ka yahay ra-iiska ayadan qeyb weyn ka qaateen ayagaa runtii tii waa kaamileen way kaamileen marka tii treasuryga badan aad u dhib badneed intaba midii horeeto aniga magaciiga laga saaro aad u dhib badneed treasuryga sidoo kaleeto aad u dhib badneed UN-ka in laga saaro UN-ka waxba lagama saari karo haddii dowlad ku diidan tahay mareykanka ma ogoleen laakiin UN-ka marka laga saarayay dowladda Djibouti ayaa mareykanka si fiican ula hadashay oo marka isaas ku ogolaadeen iyaga meesha hor fadhiya marka walahi dadka runtii maanta aan rabalkan fursadan inaan uga faa'iideysto oo aan u mahad celiyo dadka madaxda ka ah dowladahaas waan kuu soo sheegay shacabka Soomaalida meel kasta ay joogaan oo runtii arrintaas dulmi cadaan ah inay tahay ujeeday oo mar hadda adiga madluum tahay dadka dhan baa kula jira oo aad noogu soo duceeyey khadamaadkii aan u hayno ummadda aad iyo aad u fahmay macnihiisa markii anagii nagala meesha oo duca iyo mataqaanaa la jiritaan iyo afka iyo adinka intaba nagu kaalmeeyey noo naseexeeyey na qabqabsanin noo sabray runtii dhammaan waxay mudan yihiin inaan mataqaanaa mahadsantayn dadkaas dhammaantood aad iyo aad u mahadsan yihiin way adeega ay shirkaddu qaban jirto ugu dambeyntii maxay ka koobnaayeen guud ahaan adeega shirkadu horta group of companies ahayn barakaad group of companies waxaa ugu weynaa qaybta telecomka isgaarsiinta waxay bangi oo barakaad bank of Somalia yidhaahdo ayaa jiray waxaa jiray qaybta xawaalada barakaad money transfer real estate and barakaad real estate company ayaa jiray intaasa u waaweyneed iyo other servicesna waa wadwadnay runtii iyo shaqooyin kaleeto badan waan wadwadnay laakiin kuwaasaa ugu waaweynay iyo shirkado la ta'siisayay oo under barakaad consultancy oon rabna dadka oo maskaxda le Soomaalida in lagu aruuriyo oo marka ayagana ay taliyaan oo business ama ana other idea marka waa intaas ugu waaweynaa intaas ugu numberka inta qof ay ka shaqeynaysa xilligaas ma lahayaa wallaahi hadda numberkii ma xusuusta laakiin dhowr kun ahayn kolley dhowr kun oo ka shaqeynaysa muxuu yahay baaqa aad u dirayso dadka Soomaaliyeed ee aad og tahay inay marxaladaas adag ku soo dulqaateen adigana aad dadkii ugu soo shaqeeyay ka mid ahay horta Soomaalida waa runtii waa dad entrepreneurs oo aad maskax badan burburkii dhacay cawaay waxaan dhihi karnaa khasaare keliya ma ahayn wax badan ka faa'iidaysteen dadkii baxay oo dibadda tegay waa dadka maanta Soomaaliya masruufaan dhihi karna lacagaha dawladda laga soo diro ayaa waddanka hadda lu bixiya waxa la cuno waxa la xirto waxa la wato ayaga bixiya marka dadkaas ayaa hadda ay ku xiran tahay runtii Soomaalida waxaan ku xasinaa anigana aan doonaa insha Allah inaan bilaabo qariib waxaan ka bilaabay hadda inaan lu ictimaadin lacagtaas oo dadka Soomaalida dibadda waddanka wax laga soo saaro laano hadda lacagta ay soo diraan yani aad lacag fara badan soo diraan 100 million over 100 million soo diraan dadkaas all that money oo halkan timaada waa noqotaa China Malaysia ayaa loo qaadaa wadamada oo Soomaaliya mataqaan ayaa lacag loo qaadaa laano cirbad
caano boore everything waa lasoo import garay baabuur iyo dhar kulli marka waxaan ku xasinaa dadka oo ganacsatadana Soomaalida inaan wax soo saarno oo beerihii iyo xoolihii lagu noqdo aad iyo aad si aan ugu farxay waxaa arkaysaa dad geel xareeyay ma fahamtay marka arrintaas waa ku xasinaa sidoo kale runtii risaaladaan rabaalka inaan ka gaarsiiyo waxaa waaye Soomaalida dad aad u maskax badan waaye qaraabo wada ah one family ah one religion ah hal isku diin ah walaalo ah alxamdulilah rabbi caalamiin horta runtii xagga businesska karta waa najaxday laano businesska wadanka dhan waa isku furmay yani waqtigaas xataa dhibaatada jirtay businesska xuduud ma lahayn hadda waa ka warhaysaan businesska xuduud ma leh inay xagga kaleetana dhanka kaleetana sidoo kaleeto la isugu furmo walaalo noqdo wixii tashwiish iyo jiray horatay bul Allah siiyo waa dad muslimiina oo walaalo ah waxaan ugu baaqaa in walaaltinimada la xoojiyo unity-ga iyo isutaga la xoojiyo wixii khilaafaad jira la xaliyo dhan kastaba ahaadee taasaan runtii u diraa kitaabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu dhaqmo inta ayaan kusoo gabagabeynaa waraysi gaarka ayaan la yeelanay Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale oo gudoomiyay shirkadii isku tagay ee Barakaad Group Sheekh Axmed Nuur waqtiga qaaliga waa kaga mahadcelinayay sida aad ugu dul qaadatay una jeclaatay raalina uga noqotay inaad dadka Soomaaliyeed la wadaagto waxyaabaha guud ahaan ku xirnaa shirkadii Barakaad aad baan ku mahadcelinayaa adiga maad ninka mudan